بسم الله الرحمن الرحيم. anagoo ah bahda Ganisoor Times waxaan nasiib u yeelanay maanta inaan la kulano nabadoon aan ka ah ummadda Soomaaliyeed oo laga yaqaan gobol walba Soomaaliya ah. Waa nabadoon Xaaji Mursal Aadan Sugaal kana mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobonimada soo halgamay iyo baxnimada Soomaaliyeed. waxaan maanta ka wareysanaynaa dhinacyo badan oo ay nagu horeey doonto. Xaaji Mursal, horta adigu marka hore xageed ku dhalatay? waxaan ku dhashay gobolka mudug la oran jiray markii hore gaalkacyo Soonaheed. gobolkaasaad ku dhalatay waqti ku aadan baan u malaynaa waqtigii uu Talyaanigu waqtiga waddanka haystay. Talyaanigii hore ayaa haystay 1926 baan dhashay. ما شاء الله. marka maxaad nooga tilmaami kartaa waqtigii gumaysiga ee aad soo koreyseen wixii ay dadka macnaha dawladda Talyaanigu ay ku haysay ummadda Soomaaliyeed oo ama dhibaato ah ama safgaran waay? waxaan ka soo joognay ummadda Soomaaliyeed Talyaanigu inuu aad u gumaysan jiray. isagoo gumaysta ayaa Talyaani iyo Ingiriis ay dagaalameen. Ingiriis baa qabsaday. Ingiriisku markuu qabsaday ayaan anigu garaadsaday 1947 ayaan xamar imid leegadaan galay raggii horseedka ahaa oo leegada ka shaqayn jiray baan ahaa. waxyaalihii muxuu ahayto leegadu ay soo qabatay iyada oo aan dadku sidaas isagoo aan sidaas cilmi badan iyo xoolo badan iyo midna uusan lahayn ayaa rag yar oo 13 waxay tabaniyeen in ay xornimo doontaan oo Soomaaliya ay xornimo doonato xornimo leh oo gumaysiga laga baro. sidaa daraadeed dadkii Soomaaliyeedna wuu raacay ra'yigoodii. waxay ku bilaabeen niman dawladda yar oo u shaqeeyay ahaayeen waxaa la oran jiray Somali Youth Club bay la baxeen club bay ku leeyihiin. waa ka soo koreen xisbi bay fureen waxaa la oran jiray Somali SYC. waa ka soo koreen waxay la baxeen Somali SYL. Soomaaliya heerkay gaadhay oo qabiilnimo ay ka tagtay waxaan garanayaa hodheel cunto laga cunaya inta soo galnay gabdhaha Soomaaliyeed baa waxay ku iibin jireen caano iyo bufo. calaamadda leegada qofkii aan lahayn ay oran jireen markay yiraahdaan muufada iga iiba macaana ma hayno waxay fiirin jireen shaarka uu qabo meel istatiibada laga geliyo ama way go'naan jirtay ama maar bay lahaan jirtay. labada haday ka waayaan maxba ma hayno oran jireen. waxaa ka ay arintaas salkeedu ahaa waxaan la oran jiray qofkii leega aan ahayn xornimada markii la qaato waa la dilayaa si qof kasta uu uga nabad galo dilkaas. waxayna soo gaarsiisay iyadoo hub la haysan iyadoo lacag badan la lahayn iyadoo ilbax badan la lahayn calanka Soomaaliyeed 1960 kii daaqiliga ahaa ma ahana kii kale inuu ku dhasho. sida xornimada lagu qaatay. xornimadii sidaa lagu qaatay. waxaan soo joognay ama aad maqasheen ragga dibutaatiyaalka soo galaya 56 waa la bari jiray warkaalay noota warkaale xisbiga qolo walba waxa la yiri soo dirsada magaalo walba 6 gobol baa waxa la yiri gobol walba rag soo dirso. ragga ay soo dirsanayaan waa la bari jiray. nin waxaan garanayaa Kismaayo la yiri noota secretaire-ka leegadu ah wuxuu yiri aniga 150 baan qaataa heerkayga aan u shaqaystaa gaal Talyaani aan u shaqaystaa gaalku hadduu ii ogolaaday inuu caruurta 150 ka sii siinayo markaan soo noqdana shaqadii ugu celinaya waa tagaya leegadii way tagtay. waxaan rabnaa magaca Soomaalida annagu ku hadlaynaa maantayto baarlamaanka Soomaaliyeed ee cusub oo la soo doortay yaan la hadlaynaa waana u sheedinayaa waxa weeye niman yahuud waxaan idinka rabnaa oo idin sheegaynaa
oo idinku wanaagsan wax wanaagsan waxa weeye inaad dalkiina daacad u noqotaan waxa weeye dadkiina inaad daacad u noqotaan waxa weeye diintiina inaad daacad u noqotaan inta markaad samaysaan xag ilaah iyo xag aadane labadaba waxaad ka helaysaan wanaag baad ka helaysaan wadadii lagu lumay haddaad qaadaan waxa Soomaaliyeed kuwii idinka horreeyay u haysato baad noqonaysaan aakharana waji la tagi maysaan adduunkana magac ku haysan maysaan wixii ilaahay idin siiyay oo ilaahayda oo xalaala qaata wadankiinana u shaqeeya ilmihiina u shaqeeya diintiina u shaqeeya dalkiinana u shaqeeya laba waxyaalood ka tanasulo laba waxyaalood markaad ka tanasushaan ayaad waxa wanaagsan arki kartaan waxa xunna aad arki kartaan waa maskabdoon waa qabiildoon waa nafacdoon inaad cunto raadisaan saad ku heli lahaydeen jago saad ku heli lahaydeen qabiil inaad muxuu ahayto Soomaali isugu dirtaan oo midkii dan leh uu yiraahdo reer hebel baa saasa ninkaasi waa madaxweynuhu waa reer hebel prime minister waa kan war afar nin oo walaalaha saddex nin oo walaalaha oo madaxweyne iyo prime minister iyo muxuu ahayto ra'iisul baarlamaan saddex walaalaha hadda ka dhigtaan wallahi billahi tallaahi Soomaalidu waxay qaadanaysaa nin walba wixii uu rabay buu gurigiisa ku fariisan lahaa waa idinku dhaartay waxa la garanayaa waxa aad muxuu ahaytay himiladiina yaa la garanayaa haddaad se magac ku raadisaan qabiil saad ugu heshaan boos haddaad ku raadisaan lacag see u heshaa wixii lacagahayo la sheegayo carada la keenay hadda waa la og yahay waxa la yiraahdaa niman bay meel u taalaayo suuqay ku iibsanayaan waxa dadka iibsadaan wixii lacagaha oo Soomaalida la dhiibay oo la yiri dadka siiya shacbigu wuxuu qabaa inay niman tirsan guriga ugu jirto horta kaasow ma laysanaysid adan laysan baa dhimanaysa aakhira waxa kaaga horeeya xisaabta markaad dhimatid wax ka raacaya ma jiraan naag baan ka raacay oo caruur baan ka raacay oo lacagti baan ku raacay oo guriyaha dhisaan ku raacay waxba ku raacmaya war magaca waa ninka dhintay waa kuma waa hebel laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah alla ilaahay nin wanaagsan baa dhintay alla ilaahay nin wanaagsan baa dhintay alla waxa lagu yiraahday raaji ma nin baa dhintay alla kuma naxariisto markaa ka fogaada waxaan hadalkaygii ku soo gabagabaynaya ama ku soo dhaweynaya wixii la su'aalayaa rag baa joogay waa gaar waxa Soomaaliya idinka eegaysa waxa la yiri maanta to adduunka oo dhan dawladda Soomaaliyeed oo ka baxday wixii laaluush qaadan jiray wixii hadii alla ku raayaa qabiilka dadka isku diri jiray wixii waalarisaha dadkii waa ka baxay dad xulanti ah oo xalaal ah oo Soomaali ah oo daacad ah yaa la keenay waxay u baahan tahay in la idinka arko waxaan idin kula talinaynaa shacabka Soomaaliyeed ka tala qaata see uga tala qaadanaysaa waad ogtihiin ra'yigooda baara waxa ay rabaan ku socda waxa ay rabaan dadkay rabaan doorta dadka ay rabaan doorta muxuu ahayta waxa ay doonayaan idinka muxuu ahayta taasaa idin magaca dadka taasaa u dan ah wax la aqoon waayay ma aha caruurtiina sidaasaa u ah hooyooyinkiin sidaasaa u ah odayaalkiina sidaasaa u ah
wixii Soomaaliya ay dawladnimada u doonaysay oo ay muxuu ahayto intii loogeedo dhibaato u soo martay oo intaas oo qof oo kun ay ku dhimatay waxay ahayd inay nabad helaan oo dawlad helaan oo iyagu kala nabad galaan oo dadka ka nabad galaan oo wax dalkoodii ay muxuu ahayto barwaaqada ay ku noqdaan maanta dadka qurba joogta haddaad ogtihiin qof kasta wuxuu ka jeclaan lahaa inuu muxuu ahayto waddankiisa intuu tago qof kasta wuxuu jecel yahay inuu inta waddankiisa tago ilaahu tan hay ugu dilin ilaahu tan hay ugu dilin baa qof walba leeyahay waad ogtihiin waxa xalaasha baa idinku filan haddaad qabataan xaaraan ha ku dooninina oo dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina ha dhaafsanina waad aragteen kuwii dhaafsaday oo kolkoladu u buuxaan maanta waa ka cayr meel bay ilaahay taagay magacooda Soomaaliya waa wada taqaan kuwa hadda la leeyahay ha lagu celiyo oo warlorski looga reebay oo hadda la leeyahay waa la dhaarsho u soo tiro maxay doonayaan anaa wallahi war maxaa doonaysaa wixii la idin dhiibiyay waxba ka qaban weyde dhibaatadaas aad ku keenteen waxa leysaan iyo waxa dhacdaan baad ka dhigteen Soomaali war ka taga kuwaan bal haday wax keenayaan idinku ka taga hana oranina haddana hana lagu celiyo leedin aragay waxaad qabateen la arag waxaad ka taliseen la arag carruurtooda dubteen carruurtooda hooyooyinkiin iyo abayaalkiin iyo maxay ehelkiin iyo dadkii baad baabi'in baan maqalnay waa la doortay labadaba waa hambalyeynayna waa ninka la yiraahdo Shirele Shirele oo hambalyeynayna waxaan ugu hambalyeynayna dadkii baa rabitinkiisa muujiyay waxaan halka ka qiyaas qaadanaynaa inuu nin fiican yahay waxaan u hambalyeynayna kale Muuse Sheekh oo aan jeclayn haddii kolley ay arkeen ninkii inuu nin fiican yahay xataa ku xigeemada in wax laga dhigo laakiin waxaan idinkugu ducaynaynaa wada fiican Allah idin iimaanka Allah idin ku sugo ilaahay haydin sahlo waxaan idinka maqalnay hadda musharaxiinta si daacad ah oo Soomaalinimo ah ayaan muxuu ahayto ku wadaynaa Allah idinku hanuuniyo Allah hawsha idin sahlo qurba joogta ayaan hadal kaliya oran doonaa idinka intaasaan ilaahay waxaan idinkugu ducaynaynaa ilaahay wadada khayr qabtaaydan marsiyo Soomaaliyana ha noolaato amiin waxaan qurba joogta oranayaa qurba joogta dabada joogta waxaan oranayaa qurba joogta dalkiini dad kasta waad aragteen dadka kale badegaan wax kama dhistaan dhulalkaan dhulkooda ay lacagtii u dirsadaan guryaha looga dhisaa meel muxuu ahayto makhaayado ay ka furtaan war waxaad yeeshaan waddankeennii geliya ra'yigiina dhiibta muxuu ahayto haddii alla kuu rooyahay waxa aad haysataan ama aad shaqaysataan waddankeennii geliya waddankeennii wuxuu idinkaga baahan yahay ogaada inaad u soo shaqaysanayseen oo u soo xoogsanayseen oo aad kula soo noqonaysaan dadka garansiiya dadkana waxaan leenahay qurba joogta waxaa la ixtiraafaa marka lacag laga rabo waxa la yiraahdaa wax soo dira haddii nin qurba joogihii uu yimaado ragga hadda qurba joogta ah oo meesha yimid ragga waxaa fiican ay ka muuqdaan weeye ama ra'yi ha noqoto ama wax bixin ha noqoto war idinkana ha oranina wuxuu ka yimid la koraya Yurub buu ka yimid wuxuu og yahay Mareykan buu ka yimid wuxuu ka og yahay dadka kale niman baa lahaa doorashada ku doonay wuxuu ka garanaya maxaa la garan waaye oo uusan garanay waxan buu waxa xun meesha lagu sameeyay waa arkaya waa garanaya waa nin doonaya inuusan meesha imaanin nin fiican wuxuu Soomaaliya ka yaqaan wuxuu dawladda tan ka yaqaan wax la soo maray miyuu yaqaan adinkana ka daaya qurba joogta marka ay timaado alla ictiraafo waxa ay doonayaan halala qabto qof kasta oo Soomaaliya waxa ku fiican qofka kale oo walaalkiisa waxa uga aadan inuu mariyo in la isxaqiro in la isxasto waxba laguma ah